السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta oo nagala socotaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijkeena arrimaha bulshada oo toddobaadkiiba mar aan idinka soo gudbino TV-ga qaranka xaruntiisa magaalada London. daawadayaal barnaamijka arrimaha bulshada maanta waxaan ku soo qaadanaynaa mowduuc aan hore uga hadlin aan filayno inaanu xilqadan ama qaybtan kaliya aan ku koobnaan doonin ee aan qaybo dambana ku soo qaadan doono. mowduucaasi waa mowduuc aad xasaasi ah oo ogahay kulli mas'uuliyad inta loo maxay soo wada caawa waxa weeyaan waxaan kaga hadlaynaa dadka la hayb sooco iyo dhibaatada ay qabaan iyo waliba sidii loo heli lahaa bulsho caafimaad qabta oo cadaalad iyo sinaan ku dhaqanta. waxa igala qayb qaadanaya barnaamijka oo dhankayga midig fadhiya Mustafa Cabdi Ciise oo ah gudoomiyaha gobolka Gabiley. waxa kale oo ku xiga Mustafa dhinaciisa fadhiya waa Cabdalla Salim oo ah gudoomiyaha ururka SSC UK. waxa kale oo barnaamijka nagala qayb qaadanay hadda ka horna aan barnaamij hore nagala qayb qaatay waa Khadar Cismaan Guuleed oo kamid ah dadka aan hadda ka dhawaajiyay ee la hayb sooco. kulligiin waxaan leeyahay daawadayaasheeda qiimaha leh iyo martida sharafta lehba ku soo dhawaada barnaamijka. marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan idinka mahad celiyo sida sharafta leh ee barnaamijka nagala qayb qaadateen dhammaantiin. haddii aan barnaamijka guda galo waxaan jeclahay su'aasha ugu horeysa inaan weydiiyo Khadar oo dhinacayga bidix fadhiya. Khadar waa ayo dadka la hayb sooco maxaa sababay in dadka la hayb sooco? waa su'aal fiican. dadka la hayb sooco horta waa bulsho kamid ah Soomaaliya weey guud ahaan waa Soomaali waxaana u sii badan yihiin Soomaaliland. bulshada la hayb sooco waa dad Islaam dadku waa isku mid فرصاب مركز كارلا يعني هو كله قلت سجال بوكا دشي وإسلام وهو اسكو تشوف بينهاي اسكو دين بينهاي اسكو عرقتي بينهاي قفل موسان قريب مركب دشي قف وليبه وحوي دين الإسلام دشي حيبسو عنا مرد مجيد سيدي سبب قفكو قبل مركو رئيس قف مركو نقطة وحنقطة مركا قوس مركو نجي جوش ده حاسس تو قوس qoys markuu baxano wuxuu noqdaa qabiil macna waxa weeye waa chess waa reer deegaan oo meel wada yaalo waa chess ki reer hebel baalay marka dambe wuxuu noqdaa qaran oo marka qaranimo qofku u gudbaa dadkan hayb soo caarunta marka loo hadlo waa waxay u sii badan yihiin qabaa'ilka la isku yiraahdo gabooyaha marka la yiraahdo midgaha gabooyo marka la yiraahdo isku waxa weeye qorada la yiraahdo midgaha qorada la yiraahdo tumaalaha qorada la yiraahdo ibraah يعني واجبوية تذكر ذي قانا سيدا لكن سلوم ودي معها تذكر واتد إسكا جورسدي واتد وذاك سمستوية حدي عن سيارة معنا يو فرصام متجان وكله ما هقبيل ومقع فرصمه متجين وحلي هذا مقع فرصمه سانت جيلا مركن نيف جيلا على قلو اللي يقول ذا حساسة الوضع اللي يصبح فوسطه قبل اللي حريو لما حريو خميرتا ويقرتا وحقر مو بين قطع كذب ولا قصارى دول كارلا جيفيا ولا قصا مركا ولا متجين تاس قدام بحرق ولا قصارى هرت مقع ماشي وكل مدوا ماشى فرسمة أنا بديت كلي قبل شري أنا قم بروحي تيجان هان فرسام بالبوعة كل شيء أرجيسه والله مي قبل ذو قوي والله مي فرسمة أنا متجين تاوي حق قبل شري وانا markan aad leedahay waa la midgiya ma timaha laga dhogorta marka laga jarano waxa laga dhigaa maas kabihi jaangariga haweeney ku sameeysan jiray tolan baa laga dhigaa kabaha la mariya waa magac farsamo marka magacan wuxuu ka yimid halka waa midginta af Soomaali uu isbedela oo ani ku ha for example fandaad oo kale waxa baa uu cunaa waa fandaad laakiin magac ahaan marka loo isbedelaa wuxuu noqdaa faradaan فردانك وحنا نقول سب بدل فندان مقع حلو مقع بحا مقع المستنى ومقع إسلام ومقع مسلم ما مقع صومالي معها ومقع الصومالي وحبها حلو ودور ورسمة ورفاه جدي يلو لجوريو حلو بحا مركا مقع وحبها حليسي حلي متجنت أي مقع بحل متجني وقت متجن كاسر له فرسام لو حقوا يمكن متجن حل سكول هذا مديبان يمسل الرياضة midna ma wato abtirsiimo midkaan laakiin soo koonfur waxa laga isticmaalaa ma dhibaan buuqooyin waxa laga isticmaalaa waa musadariyo laakiin midkaan ninka koonfurtaga looma yaqaan midkaan waxa loo yaqaan waa ma dhibaan baa leeyahay
laakiin waqooyiga waxaa loo isticmaalaa midgin waa midgaan marka waa magac farsamo for example tumaal oo kale waa xirfad yaqaan haddaan ku raad tumaal uu xanaaqay oo waay muxuu xanaaqay waa xirfadii waa ninkii faashka tumay sabarda sameeyay haanta sameeyay faashka sameeyay toorida sameeyay waa magacii baa lagu tukooray haddii la raqfiyo tumaal xanaaqay yibirka oo kale ka soo qaad waa wadaadadeeda yibro xaggaa ka yimaadeen laakiin si wadaad ahaan weeyaa sababtoo waxay ku shaqaystaan waa maxay xagee ka yimaadeen ibro bay ka yimaadeen waa la ogyihiin iyaga laftoodu laakiin farci inaga taa ugu dhex farcameen marka wax macna waa maxay magaca isticmaal waa farsamo oo for example faalka oo kale iyaga waxayo de nabiga leeyahay han rumaysan beenaysan uu faashanaya markuu meel tagayo samaayo qaata samaayo macnihiisu waa maxay yani waa barako ilmaha markuu dhasho warkeena barakadii waxa loo bedelay samaayo tiina xumaan baa loo bedelay waa caadi qaata baa leeyahay haddana minku raa caada qaatay oo xanaaqsan marka waxaan qorto waa magacyo farsamo ee wax jira ma jira laakiin se dibkeeda haddana leedahay dadka waxaan u baahanahay inuu fahamsiino waxaan u qabiilahay ee uu yahay magac farsamo oo isku tako haddaad hadda noo sheegtay magacyadan inay yihiin magacyo farsamo ayna ahayn wax abtirsi ku yimid iyo dadkan waxaad noo sheegaysaa hadalkaaga ka muuqata dadkan inayna ahayn dad ama abtirsiyo ku kulma ama isku meel ka yimid maxaa isku ka dhigay dhaqanka isku ay dhinaca isugu leexdeen amaba la isugu takooray iyaga kaliya waxa la isugu xumeeyay waxa weeye isugu leexiyay aan ku idhaahdeen waa guurki way isdhex galeen ninkii ma dhigan wuxuu ka guursaday ninkii musdariyo kii musdariyo yibirkii ku guursaday yibirkii tubaalkii ku guursaday dadkan waxay isu keeneen waa dhaqan dabadna family bay noqdeen ninka boqolka geelale iyo ninka halka dameeray inta isku mid maaha kadib halkii bay farsamadii ka wada bilaabeen marka waxaan la isku haysta waa wada magac farsamo waxaan ninka la isku caayay qurbaha kale waa adiga arkay imka dadku way soo wada gaadheen wayna yarnaa imka magacii wayna wada sheeganaa dhibaatooyinka hadda annaga imkan sii haysta waxa weeye dibadaha midgaan baa lagu wada dhiibay qurbi way isfahmeen 9 leeshin baa ku nool haddana waa la kala wada qabaa oo waa la isku wada jiraa oo la oran maayo wareer hebel iyo wareer hebel la oran maayo dhibaatada jaataan waxa kamid ah waxa la isku qaabili jiray midgaan imika waxa lagu oranayaa dadka beega u tira badan halkaas dareemaysaa inaa magac farsamo ah ee magac qabiilna ah waan kugu soo noqon doonaa khadar ahlan wasahlan mustafa marka lagu soo dhawo barnaamijka arrimaha bulshada mustafa maxaa sababay anagoo joogna hadda qarniga 21aad inay jiraan dad la takooro ama la hayb sooco iyadoo dadkii ay isku afi isku diin iyo isku deegaan bay yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim waa su'aal wanaagsan qarnigeen maanta joogna qarni cid la takoori karo ma aha waa qarnigii maanta IT la marayo dadku information technology laakiin waa wax soo jireen oo caadooyin ka dhashay dadkana inta badan waa adag tahay in laga bedelo caadooyinka ambiyada inta badan dadku wax isku haysan jireen waxaan aabayaashii ka soo gaadhnay ayaanu bedelaan bay oran jireen dadka waxaan waa caado soo jireen ahayd oo iyo magacyo baxay sidoo hadda ku sharaxay weeyaan waa wax hadda sii dabar go'ay hadda u baahan laakiin waqtigeedii iyo ilbaxnimadeedii weli dalkii baahi baa ka jirta dadku oo dhamay dad isku filan ma iyaguna u sii liitaan oo dad in badan madax lagaga taagnaayo marka hore aan xoolo lahayn dadku marka xoolaha lahaa oo dadka farsamadu haya dadka xoolaha leh farsamadu ku tiirsanay ninna wax ma cuni kareen nin waji la yiraahdo berigi awoogaana cidii wax ku cuni jiray aabahayna awoogeena midib haysta oo hilibka awooga cidii ku goosan jiray awoogeena gowracan jiray marka de beriga inaga xadaarad badnaayeen laakiin de xoolahan hayna marka micno dadna xooliba lagu gumeeyay waa magac loo bixiyay iyo gardaro ma ogtahay farsamadii iyo cilmiga laga faa'iideysan lahaa ayaa lagu takooray tiiba soo jirtaan soo gaadhnay shalay anigu markii aan dhalinyarada ahaayay aan qaadeen marka garashadeedu ugu horeysay iyo maantana isuma dhawaa shalay waxaan ka aaminsanaa maanta kama aaminsan horta qarnigeenu joogno si dabar go'aya laakiin waxay u baahan tahay runtii farsamooyin badan maxaa kamid ah farsamooyinka u baahan farsamooyin badan u baahan tahay imika bilow ah waxa weeye in dadka la takooro horta aqoon ahaan dad dhisan ay noqdaan oo loo fursad loo siiyo in wax la baro jiilashoodan soo socda maanta ee cusub oo dhan hadda odaygana la fadhiya qadar de la mid maaha ninka kale aan waxba aqoon fursad ahaan la mid noqon maayo bulsho dhexgal ahaan la mid noqon maayo ninka markuu wax barto bulshadu dhexgelaya xafiis buu fadhiisanaya ama ganacsado noqonaya ama isdabaraya ama cid buu meel buu ka shaqeynaya dabeedna bulshadii buu soo dhexgelaya
horta deegaan ahaan dadka inay noqdaan dad wax yaqaana dee nolol wanaagsan oo dadka la mid ah ku nool oo dadku intuu yahay kala ah laakiin dad dhammaantood aan waxbarashadooda liidato hadday noqoto oo qof qadar kale dalka yimaado dibad ku nool un wax yaqaano waxay noqonayaan in dadka hadhaan maanta aqoon baa lagu kala hadhaya iyo dhaqaale marka labada qodob ee maanta sii reebay waa in dadkiina wax la baraa dhaqaalahoodiina la dhisaa taasi keenaysaa marka labada qodob haddaynu qabano xukuumadaha jooga maanta xukuumadda joogta dadaalkay wadana ay sii wado waxay iman doontaa maalin in la iska iloobo nimanka magacoodii lagu xumeyn jiray iminka rag dhalinyaro oo badan iyo dumar badan bay leeyihiin dee sheegtay inay mid yihiin oo dadkan dhex jooga lama sheegan jirin oo la qarin jiray maanta qadar waa ka inoo sheegay TV-ga nala fadhiyo waxa iminka kalsoonidii baa dhisantay marka haddii kalsoonida la dhiso waxbarashadii iyo dhaqaalihiina la dhiso dadka ku dhex lahaayeen oo dhinaca diintana laga dhiso waxay noqon doonaa dadka la mid ah laakiin dee waqtigeeda iyo jarjaradeeda u baahan doonta waad mahadsantahay Mustafa waan kugu soo laaban doonaa Cabdulla ahlan wa sahlan marka le kusoo dhawo barnaamijka arrimaha bulshada aad iyo aad waad mahadsantahay barnaamijkani fursadan aad siisay aad u soo dhawaad Cabdulla waxaan jeclahay inaan su'aasha aan saaxiibka Mustafa weydiiyay inaan ku weydiiyo adigana inagoo joogna qarnigii 12aad oo adduunku hore u maray maxaa keenay inaan weli ay jiraan dad la hayb sooco dadkii isku diin iyo isku dad iyo isku afba ah بسم الله الرحمن الرحيم waad mahadsantahay aad waad mahadsantahay in anigu de fikradahan ra'yigan qabo runtii wadaadadu way ka hadlaan waqti walba waynu ka hadalnaa arrintan waa markii ugu horeysay laga hadlay maaha axaadiis iyo aayado iyo in daliil fara badan inay ummaddu siman tahay dadku isku mid yihiin ayaa laynoo sheegaa waqti walba haddana weli iyadoo isaa tahay wax isbedela oo muuqda oo magaranaysa dhaqankii dadka ula dhaqmayeen iska bedelay wax yar baa jira markaa in runtii carabtu maahmaha baa jirta tiraahdo alcamal cibaada waxa weeyaan dee qofku markuu mihnad leeyahay iyo farsamo oo isagii dadkii u qabanayo in lagu ammaano ayuu mudan yahay in lagu caayo maaha marka dadkan waxaa lagu haybsoocaa waxa weeyaan xirfadii iyo farsamooyinka ay yaqiineen ayuunbaa lagu takooraa taasina waxaan malaynayaa dee runtii maanta haddii joojin ba lahaayeen oo guduma ma jirto iyo midi ma jirto iyo kaba iyo wax walba haddii joojin lahaayeen dee waxaynu ka iibsanaa suuqaynu ka iibsanaa mid laga keenay China iyo mid meel laga keenay kale teeniina waynu ku caayeynaa dadkii waynu ku takooreynaa marka runtii waxa weeyaan anigu waxaan arkaa inay tahay uun jaahilnimo inagu aynaan runtii fahamsanayn qiimaha iyo dadkan ay noo leeyihiin iyo waxa runtii ay mudan yihiin iyo wanaagga ay mudan yihiin maynaa weli karan marka waxaan u malaynayaa in aynu u baahannahay wacyigelin aad iyo aad in dadka loo wacyigeliyo dee xuluusha iyo sidii looga bixi lahaana haddii la yidhaha dhawaan ka hadli doonaa insha allahu waad mahadsantahay kugu soo noqon doonaa Cabdulla khadar mar kale ayaan kugu soo noqday guud ahaanba haddaynu ka hadalno dadkan la hayb sooco dhibaato intee la eg ayaa haysata ayaad odhan kartaa wallaahi runtii culaysku wuu badan yahay inkastoo dan xabsii kala leeyahay horta marka ugu horeysa waxaa haystaa waa takoorkii waayo qofkan waa shaksi waa qof bil'aadmiya waa qofkan la mida wuxuu dareemayaa ninkanu inuu ninkanu yacni quursanayo oo waa dareemaysaa waxa weeye iminka hadda heerka ay Soomaalidu gaadhay yacni qabiilku fadku markuu jeedo waa meesheeda laakiin waxaad moodaa qabyaaladda iminka meel walba way taabatay guri walba way gashay maamulkii bay gashay guurtidii bay gashay waxay gashay qoyskii bay gashay qofku markuu qof yimaado assalaamu calaykum yidhaha su-aasha labaad weydiin waxa weeyaan sukay sheego qolomaad su-aasha labaad weydiiya markuu assalaamu Soomaali baa tahay Soomaaliya qolomaad ay wado qofkii markaa uu dareemaya yaana u dhacday laftayda in baan yimid assalaamu calaykum dad meel wad badnan maxaad sheegtay nabad caafimaad qolomaad waxa midgaan baan anagu maanu caayin baan aday saacad dee maxaan saacad waaban haybe waan tu igu sheegay waxaan tusayaa midgaankan inaan ahayn wax jira dee aad midgaan baa tahay baa tin midgaan baa ninka way xanaaqan ninka odayga soo hadlayaa miyaan nin weyn ahayn radeeg waxa laga yaabaa haddaan uu sadariyo oran lahaa inaanu karteenba oo u yaqaano midgaan waay culayska la saaran ninka waxa ka mid ah for example marka runta laga hadlayo horta anaga lafsay horta maanta waa isku filan oo anaga aalimka hablahayaga wada jaamiciin yihiin oo dee dhakhtar yihiin oo doctor yihiin oo biology yihiin yurub oo dhan baa ilaahay noo sakhiro daafka noo kala haysta laakiin dhibaatada taaban waxa weeye inanta habadii hor saarkiisa joogta haddaan damcay inanka adeerkaaga inaan u doono
marka ilaa waxaan rabaa inaan kanu intaas u jeclaaday inantiina saan in la yidhaha qolama marka u horsaarana qolamaa tahay markaa midgaan de ma siinaa lii waa dhibaatooyinka hadda weli imika sii jira yurub way ka ilbaxday waad ii arkay oo dee noocood waa la isguursadaa maanta waa laga ilbaxay laakiin weli soomaalid bay ku dambaysaa laakiin samid baa imika hadda anagu dee aan u garoono waxa weeye dadkii uu noo garaabay waxaan wax jira inaanay ahayn waa la garaabay in dadkii la fahamsiiyo wadcigelin la sameeyo wadaadadii ka hadlaan dowladdii xeerar usoo saarto for example waxaa la odhan jiray dowladdiisa aad barra way u hiileeyeen oo way raaceen maxaan ugu hiilay wuxuu ninka nin midgaanku yidhaha waa 6 bilood xariga waa la xiri jiray markuu yidhaha midgaan odhan steeshka tegi jiray jiray hebel midgaan yahow igu 6 bilood baa la xiri jiray laakiin haddiiba magacii aad sheeganaysid sidan hadda adigu aad sheegtay maxaa looga xanaaqayaa wuu daba dheeraaday magacii uu daba dheeraado anigi ka xanaaqi maayo laakiin dadkii kalaaba ka xanaaqayaba kii kalaaba kule marka tiraa midgaan baan idaanu kumaan caayin kuley magaciiba caayin ku bedelay wuxuu ka dhigay wax hoos ayuu ka dhigay marka qofku isagii baaba takooray anuun takoorinba anigii ahaa midgaan baan ahay buleeyay ma baftiid maxaad su caayaysaa anu kumaan caayin marka magaciina waa magac farsamo waa nin kula tumaalkii buu ka xanaaqaya waa ninkii birta u sameynayay u tumay haddaan kula tumaal baad u xanaaqaysa haddaan kula midgaan baad u xanaaqaysa haddaan kula yibirkaad waa caada qaato way macni waad xanaaqaysa marka waxaan waxa la isku takoor waa marka kale hiirtaayo uu leeyahay oo hiirtaayo uu ka reebay inkastoo imika hadda anaga ilbaxnay oo anaga imkaan isku filannahay laakiin dadkii waxaan leenahay war magacaan inaanu ahayn wax jira uu ogaad bulshadana hal wargeli sax khadar dadkan la hayb sooco ama la takooro iyagu dhexdooda ma istakooraan soo isku duuban yihiin ha anaga laftiisa istakoora dhinac marka laga eego hay oo dadka koorku wuxuu ka yimid imika waadi arkay imika waxyaalaha taagan imika nin waliba qabiilka imika wax dabada loo haystaa nin waliba berri wuxuu diiday inay dhaa midgaan baati waa ninkan abar jecel kan abar dhiyo soo maanta ka adkaada berri isagii takoor iyo xilay caadaqaad haatay inta ku siin maayo nin waliba wax ka carray waa midkaanimadii wax kale laga hortay wax kale isu takoor meesaan isu dilmeysaan waxa isu dilaysaa maanoo garaayaan adoo hebel ilaa caankaas iyo caanka nin waliba wax ka carray midkaanimadii ku carray waa takoorkii culays kifoodkii imika waa naga jeestay annaga wadikii baa isku jeeda marka meesha yaala waa maxay waxaan wax jira inaan intii annaga iyo idinku markaad imika leedahay dadkii anu waxaan aaminsanahay mar haddii isku deegaan yihiin isku afna yihiin isku diinna yihiin inay isku mid yihiin erayga laftiisa ayaaba isticmaalkiisu aanu habboonayn baan anu aaminsanahay annaga iyo idinka marka weli takooradii qayb ka mid a ayaa sii socota aan socon laakiin mawduucana tusay waxa weeye dawaa shaaba ku taala tiisaan tustay sababtoo anigu imika for example dee family-ga dhexdiisa waa sii takooraa sababtoo waa sii kala yaryihiin ka sagaalka dhalay iyo ninka dee midka dhalay iyagii baa istakooreen labada nin walaalaha midna sagaal dhalay midna mid dhalay dee kaa sagaalka dhalay kanu joojin maayo intiisa siin maayo takoorkan waxaa kaasoo lageyn kan waxoogaaga haysta kan dee biyoolahaan waxba haysanin kaayaga annaga abaan ka hadlaya ee dee tijaarka ah kan waxba aan haysanin walaalkiiya dee waa ina gumeed dabadna intiisa siin maayo ina gumeed buu leeyahay xoola yeelo waxaan si saagay gudoomiyuhuna waxaan seerkan si gaarsiin waa dhaqaalaha hadii dhaqaala dadka la siman waxaan waxaan laakiin waxaan noqonay xirfadiyaan gacantiima waxaan maanta helana caawa macna runta marka loo hadlo waxa ka dhaqaalaha kuma wanaagsan waa taalibka miiska صح أنا وأكون سنقول دونا خضر مركز مصطفى maxaad isleedahay dhibaatadan soo jirtay qarbiyada badan ma aha waxan wax hadda sameysmay wax waqti dheer soo jiitamay maxaad isleedahay waa lagu xalin karaa horta iminka maanta uqdadii gabooye ama midgaan runtii mid jirta ma dadkiina waa ka ilbax beriga hore dee waaba dhifi naadir baan jirtay in qofku sheegtaba inuu midgaan dabadeedna marka la arko qofku wuxuu diiday inuu laba daba gala maanta sidoo qadar qaadanayo dhalinyaradii maanta way wada aqbalsan yihiin inay reerku waa magac waxan waa magac magacuna ceeb ma leh haddaan loo yeelin dee maanta dad maanta dhan reerkaan ahay aad ku celceliso haddaad xumaan uga jeedo ka cadhoonay laakiin haddaad magaca uun sheegaysid cidna ka cadhoon mayso horta maanta qudadii meesha ka baxday waxaa keliya loo baahan dadkan wax loo qabto wey waxaan lagaga saari karaa waa dhowr qodob waxyaabaha loo baahan waxa wey horta dadku in dadka la mid noqdaan dee mar haddii cudadii meesha ka baxday dadku way la mid noqon karaan way gaari karaan kow maxaa lagaga saari karaa horena kugu sheegay waxaa lagaga saari karaa waa aqoon ahaan in la dhiso oo ay yeeshaan dad jaamiciyiina dad dhaqaatiir injineero looyaro dad ka mid ah oo nin walbaba professionka uu haysto anigu fursam saxaafiyad baa tahay aniga adigu imika isku beel baynu nahay
for example waxaan beel iskaga nahay isku mihnada anigu professionkayga waxa weeye backgroundkayga journalist baan marka maadaama journalist aan iskaga dhownahay dad kale ma aha inaan isku reerkii iyo qabyaaladana horta waa inay professionalism ka ay gabooyi journalist yeeshaan oo lawyers yeeshaan oo dhaqaatiirta yeeshaan oo beelaha ku biiraan beesha saxaafadda beesha caafimaadka beesha lawyerska horta waa in ay dadka soo galaan marka ay bulshada ka mid noqdaan oo ay dabeedna dhaqaalana kaga mid noqdaan aqoonna kaga mid noqdaan waxa iman doonta marka ay samadii in la daayo laba qodob baan kala qaadaya dhinaca guurka iyo dhinaca aqbalaadda in la aqbalo jiritaankooda waa laba kala gaar ah guurku muhiimad waxa laga yaabaa laba reer oo isku reer inay isku diidaan gabadha laga yaabaa anigu jilibkaan haynu isu diidaa laga yaabaa oo yiraahdo hebel waa nin xun oo ma siinayo waxyaabaha xumaadka keen waxaa ka mid ah isagoo mashaqaystanimo lagu ogyahay isagoo dee nin aan akhlaaq wanaagsaneyn ah oo dadka bulshada ku diin fiican lahayn shakhsiyadiisa lagu diiday in laga yaabo abiyo backgroundkiisa loo gaayo nin xumaa dadka maagi jiray ama dhagarqabaha in la yiraahdo kaasoo dhalay hadhowna isna waa la mid ah naga siinaba inaan reer xun buu galeysay yaani saa waa laga yaabaa in la isu diido reerkayga uu isku diido laakiin marka uu dhismaan marka dambe oo iska iman doontaa waa qasab waxa weeye dee nin aqoon leh ama gabadh aqoon leh waa la wada guursan doonaa ama dhaqaale haysata oo dadku dee waa iska opportunity dadka inta badan waa iska dan leh taa waa iska iman doontaa laakiin marka hore dadka in la dhiso aqoontooda la dhiso iyo in dhaqaale ahaan ay dhismaan horta waxyaabaha muhiimka ah wey si taa loo dhisi karana waxa weeye yaa ka qayb qaadanaya dhisi kara horta kow iyagu mas'uuliyadda kooda inay qaataan oo iyagu wada ceeb kasiliin maaha iyaga laftigooda waa inay ogaadaan shaqo inaanay ahayn timo la jaro iyo bir la garaaco keliya waa inay ka dalacaan oo taa ay u dhaafaan inay dadkii wax la qabsadaan oo maanta shalay marka dadku xooluhu lahaa dee ayay ahayd inay birihii warshado u bedelaan warshado waa in la dhaqaaleeyaa for example Soomaaliya oo kale Hargeysa xarun bay ku leeyihiin xaruntooda waa in warshad loo bedelaa oo in la maalgeliyaa dabeedna waxay ka imanaysaa xagee ka imanaysaa horta kow inay iyagu aqoon yeeshaan oo markaa mashaariic iyo la iman karaan in investment la siiyo in dowladaha weydiistaan hay'adaha weydiistaan iminka World Bank oo kale iminka mashaariic u bixiya laakiin haddii abaabulan yihiin ay la yimaadaan in warshad la siiyo dabeedna biraha ku qalloociyeen biraha ku samaysan ku hagaajistaan way dhaafilayaan moogta labada naas ay bomgareynayaan way dhaafilayaan marka hore inay board ka kacaan iyaga laftigooda ay wadadan iska saaraan sida raggan oo kale iminka wax bartay iminka Hargeysa waxa jooga oo anagu aan saaxiibanahay iminka for example beri dhoweyd waxaan weydnay inaan symposium qabano lagaga hadlayo see looga saari karaa dadkan anagu markaa dhalinyaro badan isugu jirno rag madaxa iyo rag dhalinyaro aqoon-yahan ah oo civil society ka socda sida maayarka magaalada Hargeysa oo kale anigoo kale DG-ga wasaaradda faafinta oo kale istuduwaha mataqaanaa ama executive director hay'adan madaxa banaan ee sahan la yiraahdo kale barbaadada committee baan ahay la taliyaha madaxweynaha arrimaha bulshada ugu jiray in symposium baan wadnay rabadaanta naga soo dhex gashay in symposium weyn la qabto maxaan u jeednaa markaa waxa weeye iminka waxa ilaa iyo khamiis walba aan kulmi jirnay iminka ilaa iyo 8 khamiisood baan kulanay khamiis walba waxaan noo iman jiray ilaa iyo 15 inan oo iyaga ah oo nin gaarigiisu wato nin walba profession gaar ah leeyahay oo marka aanu doodayno haddii arrimaha sharciga laga hadlo la taliyaha wasiirka taliyaha ciidanka asluubta ee dhinaca sharciga waa reerkooda wey ninka human right nin baa ugu jira raggaas aan la soo fiiriyay marka sharciga laga hadlayo oo oranaya sharci qodob hebel waxaan ugu jira rag dhaqaalehana oo iyaga kamid ah gudoomiyaal degmada leeyihiin iminka agaasimayaal waxyee leeyihiin yaani iminka soo kobcayaan marka ragga haddii dhinaca laga dhiso ay dadka kamid noqdaan aqoon ahaan dabeedna dhaqaale ahaan la dhiso dowladuna participation siiso fiican waa laga bixi karaa oo laga saari karaa aan ka dhexgalay Mustafa dawlado badan ee Soomaaliland soo dabamaray oo hadda dawladda Axmed Maxamed Siilaan ee hadda jirta ugu dambeysay maxaan oran karnaa dawladahaasi way ka qabteen oo la oran karo wax isbedel baa jira ama horumar bay sameeyeen jaaliyadahaas iyadoo taa laga duulay qodobadan ku sheegay in labada qodob wax laga qabto waxbarashada iyo dhaqaalaha ay xukuumadda maanta Axmed Maxamed Siilaan madaxweynaha waxay u xidhay in jaamacadda dawladda iyo iskuulada dhan koota laga siiyo qof alle qof wax baranay reerkaas ah in koota laga siiyo waana loo ololay in jaamacadaha kale gaarka laftigoodana kootooyin laga siiyo oo laga dhiso dhinaca waxbarashada laga dhiso sidoo kale dawladdu waxay qaadatay inay siiso dhinaca shaqaaleynta inta wasaaradda maaliyadda kala kooti ku lahayd iyadoo dad kale oo dhan imtixaan galaan ayaa iyaga in gaar ah loo xidhaa iyaga kaliya ku tartamaan oo laga shaqaaleeyo waxa weeye madaxweyne Siilaan inta uu magacaabay madaxdii ka horreysay oo dhan wasiir hay'ad uu magacaabi jireen xilal kale lama siin jirin madaxweynuhu wuxuu keenay Siilaan oo kale in xitaa darajadii laga qayb geliyo oo ogeydeen in inta shir qabteen madaxweynaha madaxweynaha korneyl meedan bilay
iyo in hadda hay-adihii madaxa banaanaa oo kale guddida cadaaladda koota loogu xidhay waxay soo magacaabeen hay-adihii loogu talay inay soo magacaabaan nin kale oo reer Hargeysa bay soo magacaabeen xukuumadda diido ka saartay baarlamankuna ku raacay xubin baa la geeyay iyaga kasoo jeeda lagu daray marka in dadkooda aqoontana la dhiirigeliyo markiiba ay shaqo helaan lana tababaro taa markaa maxay kala saaraysaa horta marka hore bal horta in iyaga la ictiraafo dhismaan aqoon ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqaale ahaan markaasaa kan dambe ee guurku iman doonaa guurku dee cidina guur iskuma qasabto iminka way qabaan rag badan oo gabooya ayaa hablo badan reer Somaliland reer kastaaba ha noqdaan qaba rag badan ragna waa jiraan habla ka qaba iyaga way iska iman doontaa marka inaan qurux badan oo aqoon leh iyaga dadku ugu qurux badan habloodii marka la arko aqoon ku darsatay dhaqaalana haysata way iska guursan way su'aalan ku weydiiyo raaliga su'aal ba ku weydiinaya waan soo garanay waxaan culays inuu ahaa saara familiyada bulshadan way qiraysaa iminka in laga gardaraa oo dee arrimahan ay jireen waana loo wada garaabiyaa ma diidan tan dhaqaalaha iyo maalgelinta iyo waqtigeeda leedahay waxaa jira maamuusyo la sameeyo maalmo la maamuuso Somaliland haddaynu nahay reer Somaliland baan ku dhalanay way ku dhaqanay ku abtirsanayna gudoomiye mas-uul gelaysaa dawladdu inay magacawdo maalin gooniya oo la waa maalintii takoorka la jaray maalintaas maanta waxa loo dabaal degayaa ila maanta farxalka wanaga u dabaal degni oo maanta khashuubka wanaga u dabaal degna ma noo helaysan si aan uga soo kabano wixii waa maalintii la ogaaday inaan wax midgaan la yiraahdaa aan jirin dadku ay sinaayeen maalin gooniya ma lagu baaqi karaa taasaan ku liqi karaa wax keen ugu dhacay oo dhan horta marka wax la doonayo in la ciribtiro for example marka advocacy su'aal fiican advocacy marka la sameynayo hatta discrimination ama maxaa kamid ah midabta koorka for example in qofka horta hadii maalin gaar ah ku sameeyo discrimination ka qayb ka noqonaysa laakiin kaba soo qaad hadii aad jeclaatay symposium bay noqonaa imika shirkaas ka soo qayb gali doontaa halkaas ka soo bixi doonaan ilaa 200 qof baan ugu talagalay inay ka soo qayb galaan oo aqoonyahanka gabooye mutacalimiin dibadaha ku maqan dadka kala ah rag waaweyn oo aqoon leh madaxweynuhu inuu yimaado jecel oo dawladdu ka qayb ka noqoto bal halkaas aynu wixii laga sameyn doonaa policy ah ee laga hortagayo laakiin runtii aan waxaan qabaa inaan for example reerkaygu maalin ma lehe inaan magaca waxaas maalintaas waxay keeni doontaa qayb bay takoor ka ahaanaysaa haddii maalin gaar loo sameeyo maalinta gabooyaha weli takoorkii waa sii soconaya waxaan rabnaa si loo profile ahaanaysa ka dhamaatee aan magacay aniga si ila tahay way shakhsi aragtidayda laakiin ma aha aragti dawladeed adigana taada waxa way ma aha mid aad defaynaysa laakiin waynu ka doodi doonaa biseel bay u baahan tahay aynu symposium ka isugu nimaadno for example meelahaas raggii aqoonta lahaay gabooyay raggii dadka kale aqoonta lahaay ablihii kale isugu iman doonaan waynu hor dhigaynaa waxaan ku ballan qaad qodobka inaan ku daro way su'aasha labaad ee aan weydiinaya waxa way for example idinku waxaan iibinayaa waxaan iibinayaa anu maamulka Hargeysa ka soo mid ah degmooyinka Hargeysa waan ka soo noqday gudoomiye agaasimayaasha ka soo mid noqday waxa dhacday sheeko qosol ku haya maalmaha ka mid ah ayaa anigoo marka ah gudoomiyaha degmada Gacanlibax ayaan dariiqii deer buu habeenkii sameeyay deerku xidhay dariiqu socday subaxii baa kormeerayaashii maadana waxay yiraahdeen deerku waa xidhay dariiqii oo yaa xidhay deerka caynkaas ah xidhay shaqaalihi baan soo kaxaystay waxaan soo kaxeeyay cagfiyada xooggan ma soo kaxeeyo waan jirsii deerkii baan dumay ninkii baa loo sheegay waxa yidhi deerkaaga inay hebelo waa la dumiyey oo yaa dumiyey baa waxa dumiyay gudoomiyihii maamulka degmada waa qolaba waxa waa midgaan ba deerkii dumiyaha laba qoru soo qaatay ana xafiiska soo gala wuxuu deerkii maada dumiyey waxa deerkaaga maan dumiyay sharciga dumiyey ee sharciga yaala wadadii buu xiray dabadna lama ogola sidaas darteed ayaan u fuliyay ee maamulada iga sareeya maamulka ku sareeya wata ninkii Google buu dhigtay reerkaygu u tag wuxuu ninka isaga haddaan la iga soo xaal marin oo deerkayga aan mushk soo celin isaga xabad ku dhufanay arintii erkay martay maamulkay martay been ku sheegi maayo deerkii meeshii baan ku celin yani waa dareemaysaa hadda maamul ahaan ama dhaxan marka la eego de way nin family ku soo shiday family wuli qadar mid baan u kala qaadnaa mid waxaan u maleynayaa hadda daciifnimo in lagu celiyo ku soo noqono taas in lagu celiyo ma ahayne haddaba degmada Macalin Haruun deegaanka wayaba waanu Cabdillah roolka leedin siiyay wadarkiisa
kusoo noqon doonaa Mustafa kaaga jawaabi doontaa Cabdalla waxaa tahay gudoomiyaha SSUK waxaa jira dad qurba joog oo fara badan oo dadka la hayb sooca ah oo reer Soomaaliland way ka maqan yihiin bulshadii Soomaaliland bulshaduna way u baahan tahay dhibaato intee leeg ayaad is leedahay dadka ka maqan dadkoodii way haysataa horta waan mahadsan tahay waxaan rabay inaan horta walintii hadaladii khadar aan iyo ku daro si la yiraahdo waa runta anigu runtii ra'yiga fikradda tiri hal abuuro maalinta cidibtirka takoorka runtii ayadoon qabiil loo nasbaynin horta aad iyo aad baan ula dhacsanahay runtii waa fikrad wanaagsan aad iyo aad insha Allah wana dawladeena waynu ku go'aamin doonaa in arrinta laga daba tago horta dee qurbaha asaj yani wixii ka dhacay dee gudaha kama dhacaan oo halkan sharci baa jira oo la isma takoori karo oo meeshan dal iyo dawlad kala ka talisa marka wixii xagga ka dhacay halkan kama dhacaan runtii laakiin naga dhexdeena qurbaha halkan waxa weeyaan mayna xidhiid mayna lahayn runtii intii aan khadar bartay iyo barkhad يعني ضد فرقترسة أيام قيني رنتي أنا وبرسنني أو أيام كنسا ريرها الله بسرعة مركز تحسيب حكي يعني واحد شرتي دي ليس مدح قليل هسه شيء ما أنت حكوا فرحسنا يعني هذه يدين مدي كلام برا النبي إن شاء الله نور نوتان بان إن شاء الله وجعل الله الباب هي أنا كقول لهين دتك اللي سوق سود وين لها إن نور نوتان إن شاء الله أرنتنا أنا وسأنا أركو وحنو قاعد يا لبا إن وحنو قيبنا يا لبا مدروا مد بالشتاء خصيصة مدروا مد يعني هاي هذا الرسمي الدولة خصيصة سومالان تبالشدو رنتي واحد كوي من كرتاون يسدح كل كوي من كرا إن وعي جرينتي لكرديو والله والله بنعبة رنتي عادي لو ضحكله وعادي لو عديو يعني وضيعتي دو عددنا عن الودين دنيرو activities يعني إسكو كينيا la sameeyo oo makanaysa dhalinyaradu isdhex galaan waxa kale oo muhiim ah in gunta laga soo bilaabo oo wasaaradda arrimaha waxbarashada oo kale tacliin baa wax walba lagu baabiin karaa runtii cilmiga bani aadamka hadii la kordhiyo wacyigelintiisina way kordhaysaa marka carruurta hadii lagu ababiyo inay qabyaaladani tahay wax ummadda kala baabiinaya kala fogeynaya dalkii baabiinaya hadday tahay in marka lagu daro curriculumka manhajka wax lagu barto in lagu daro wax tilmaamaya inay tahay qabyaaladu wax baabiya ummadda oo ay carruurtu marka ay soo bilaabaan ilaa ay weynaanayaan dee daba socota marka wax ka soo bilaabma oo xagga wasaaradda waxbarashada runtii ay door weyn ka qaadan karto wacyigelinta ummadda labada dhinacba taas waa mid waxa kaloo dee iyaduna muhiim ah oo hadii jeer aynu aragnaa dawladdu dadku waxay ku qaybsadaan makanaysa maamulka dalka laba wax bay ku yimaadaan mid waxa weeyaan mid ku yimaada cod bixin oo sida golaha deegaanada iyo baarlamaanka iyo makanaysa madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo kuwaas saasay ku soo baxaan oo dadku saasay ku soo baxaan axzaab bay soo maraan marka cod bixin bay ku yimaadaan qaarna waxay ku soo baxaan oo runtii madaxweynaha ayaa dee magacaaba oo xililka dhiiba xililka sarsare dhiiba marka labadaba waxaan oran lahaa wax badan bay u baahan in laga qabto yani tan madaxweynaha runtii wax badan uu qabtay oo intan uu xukunka hayay uu qabtay way jirtaa hase yeeshee waxaa sii wanaagsanaan lahayd weliba wax dee tilmaaman oo la arkayo caddaan ah oo ummaddu arkayso in uu sameeyo oo ku dhiirado ayaan jeclaan lahaa inuu markaa inta tan iminka siday muuro yihiin inuu kasii wanaajiyo ayaan jeclaan lahaa waanu ku mahadsay intii uu qabtay xukunka wax badan buu ka qabtay sidii inoo sheegay Mustafa waxa meesha ka maqan tii shuruucdii baa ka maqan baarlamaankii tiisi baa meesha ka maqan adduunyadu yani meel walba dal walba sharci baa wax lagu mamnuuca sharci ayaa wax lagu fasaxaa yani qabyaaladdan faraha ka baxday ee maalin walba sii badanaysa ee dalkeennii magaranaysaa saamaysay ee cid walba saamaysay ee aan haddana waxba laga qabanayn ila leeyahay waa tacaaruf dalkii bay baabiinaysaa waa la arkay haddana waa tacaaruf baa la leeyahay xaggee tacaaruf ka tahay ummaddii bay baabiisay marka waxaan doon jeclaan lahaa in bal at least parliamentariansku ay soo jeediyaan yani motion ay soo dhigaan ay bal arrintaasi sidii lagu yareyn lahaa haddii aan laba mamnuuci karaynba
oo magaranaysa haddii halkan oo kale waxyaabaha qaarkood lagama odhan kare haddii aanay yani aanay masixiba karin in wax yareeya ama ay sameeyaan oo dadka hakiya oo at least wixii laga xishoon jiray aan lagu dhiiran wallahi waa laga xishoon jiray reer hebel baana axtigiila waa laga xishoon jiray marka maantana waaba lagu faanaa reer hebel baana dadka qaar baaba yidhaahda reer hebel waaba dee waaba insurance-kaygii ya insurance weeyaan bay kuleeyahay qofku yidhahda reer hebel baana marka wixii laga xishoon jiray in lagu faana maaha qabyaalada walaal in la baabi'iyo oo in siyaabaha loo baabi'iyo wey shaqaalaha sida uu sheegay mukhtaar maanta waxaaban runtii aad ugu faraxsanahay mustafa waxaan aad ugu faraxsanahay inay jirto hay-ad dowladda oo magaranaysaa buul yani meel lagu kaydiyo dadka shaqaale raadiska informationkooda oo halkaasi laga dalbado oo department walba oo ka dalbado runtii taas aad baan ugu faraxsanahay inay jirto hase yeeshee in la yidhaahdo deegaankaas iyo deegaanka in dadkii loo qaybiyo anigu lama hayo waxaan jeclahay in halkaas un wixii meel kastaba qofku ha ahaadee ka yimaadee in halkaas un laga soo xusho oo dabeedna meeshii loo diray baa loo diro ya ama berberaha loo diro ama laascanada loo diro laakiin qofkii shaqaalaha ahaa in meesha inta lagala soo baxo haddii dee magaranaysa cilmigiisu gaarsiiyey halkaa looga diro ayaan jeclaan lahaa marka qabyaaladaasi inaan bilowno wasiirka arrimaha gudahana aad baan runtii halka kan fursadan aan uga faa'iidaysanayaa oo aan runtii ku ammaanayaa tallaabadii uu sameeyey ee ahayd inuu mamnuuco qabyaalada la soo fadhiisto TV-ga marka tiina waxaan jeclahay inuu halkii kasii wado insha allah aad baad u mahadsantahay cabdalla waan kugu soo laaban doonaa khadar iyadoo barnaamijka gabagabadiisiina aan joogno ma jiraan dhaliilo ay leeyihiin dadkan la takooro oon odhan karna iyaguba waxaasi khalad ku galeen ha maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah runta marka loo hadlo annagu bulshadaan ku dhex nool sababtoo labada nin walaalaha ah mid kabiila buu degan midna berberu degan midna burcu degan waxaan ku shaqeynayna waa magac farsamo oo xirfadayadii baa isku wada mid ah inkastoo imka xirfadina laga qaaday oo lala bartayba oo aan helin baan xitaa waxyaabo lagu takoori jiray ama cuntada ha noqoto oo la wada casriyey oo farsamo loo bixiyey imka berber waxaan lagu caayi jiray madaxay cunaan baa la jiray midguu mijahay cunaan baa la jiray midguu calooshu cunaan baa la jiray imka waa la farsamiyey magac farsamaa la wada bixiyey imka calooshu waxay oranayaan waa turbo inji waxay oranayaan waa kraacin madaxii waxay oranayaan waa dayax huleelka markuu inuu ka yimaado dhaa maxaa yaalla huleelka ay oranayaan federeeshkii baasadii bariiskii dayaxii wuxuu oranaya miyaad ku wareegaysaa mise dhan baad iska taagaysaa waa la isla yaqaanaa dhan baan iska taagaya hadduu dhaa waa qayb ii keed wuxuu dhan waa la casriyey wax walba waa idinka qaada markaa dhibaatada anagan haysta waxa weeye dee kaa berbere joogaa ciise muusuu la degan iyagu qaaraankii la bixinaya oo la mid yahay kii gabiila joogay jibriil abuu la mid yahay iyagu qaaraankii la bixinaya kii hawd gundii joogay habar yoonis buu la bixinaya qaaraankii ceebta keliya aan leenahay waxa weeye isuma iman karo oo waxaan xukuumadda professionka iyo shaqadii kii tumaalka ahaa ee hawd guntii joogay isaga laftiisu wuxuu la degan yahay qolooyinkan wada waa kan marka faashka sameeyaba loo keenaya neefka adhiga ah marka nin walba wuxuu ku xisaabtay profession haddaan siraa doorasho qabsada oo isu yimaadana isuma iman karo oo sababtu waxa weeye dee kaa uu la degan yahay ayaa oranaya dee war anaad la deegaan tahay iigu rid foodka waxaa laga yaabaa dhowr jeer inaan ugu ridin karin ee uu garanayo kaa uu la deegaanka yahay uu kaa ugu ridayo haddii kale culays baa fuulaya dhibka keliya leenahay waa dhibka haddaan isu iman kari lahayn deegaan baan samaysan lahay inkastoo deegaanka goonida aan dan noogu jirno aan nahay profession dad farsamo yaqaana oo deegaan kaliya aan isugu iman karay laakiin dhibka aan leenahay waxa weeye taan isugu iman talo talo wax la haddaan talo isu leenahay ama tawfiiq leenahay ajiga waa qoran la gebigood waana ka badnaan lahay gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaadhnay qadar ismana lihi kolley mana ahaba barnaamijkeeni barnaamij lagu soo koobi karo waqtigan aan haysano maanta waa barnaamij aad u ballaaran waxaan jeclahay dadweynahayna daawanayana in emailka shaashada uga muuqda ay kaga soo qayb qaadan karaan iyadoo xilqadaha soo socda aan ku falanqeyn doonaan barnaamijyo fara badan oo kan lamid ah oo nagala soo qayb qaadan doonaan khadar iyo weliba dad kale oo kamid ah dad ay dhacdooyin run ah ku dhacday iyo dad dawladda u shaqeeya iyo dad khibrado kale leh oo sidii waxaan xal loogu heli lahaa intaba ka hadli kara khadar ugu dambeyntii bulshada ku daawanaysa maxaad u soo jeedinaysaa bulshada daawanaysa waxaan soo jeedinayaa horta haddaan la isbeer ruuxawsan oo aan runta laysu sheegin waxbaynu hagaagi maayaan runtii waxaan ku dhoon lahay bulsho caafimaad qabta halgan doonaysa
runtii noloshooda jecel laakiin aan tusaale u siinayno anagoo la nool nabadgelyo waqtiga inankayga reerkiisa uu socdaa waqtiga inan kale ma socdo sababtoo markuu yidhaha war nin reerkaasaan sii daayaan leey nin hadduu kula hadlo toonbaa soo kacaya oo odhanaya saad ula hadasha maamul iyo maaraynba dadku waa jecel laakiin waxaan kula talinayaa marka keliya ujeedadu ay tahay inay tahay bal wixiina lagu takooray in la ogaado waxaanu aanay ahayn qabiil ee ay ahayd magac farsamo dad kalena loola midnay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaynu iska saaro qabiilku cudurka uu leeyahay waa kaa maanta ina haya ictiraafna waa sugaynaa ictiraafku waxaan u sugaynaa waxaa weeye in layna ictiraafo dowlad ahaan aynu inagu mas-uuliyaddan qaadano laakiin se ay dhibaatadeeda leedahay haddaynu qabiil u kala saaro wixii inuu ina dambabeersanayo sidaa darteed waxaan kula talinaa dadka in laiska saaro qabiilka la iska daayo dadku isku mid noqdo wacyigelin la sameeyo wadaadadu ay sameeyaan culimadu ay samayso waxgaradku uu sameeyo maamulku uu sameeyo dadkiina ay isfahmaan aad baad mahadsantahay khadar mustafa gabagabadii barnaamijka dadweynaha reer somaliland meel kasta caalamka joogaan waa idin daawanayaan maxaad ugu dambeyntii kaga baxaysaa waxaan dee odhan lahaa dadweynuhu inay ixtiraamaan in dad isku mid isku diina isku dhaqan isku kalar in la is ixtiraamo oo cid walba halkeeda lagu ixtiraamo ayaan soo jeedinaa cabdalla maxaad ugu dambeyntii dadweynaha kusoo daawanayaan runtii aniguna saas leeg baan odhan lahaa waxa weeyaan waxaynu gaarnay waqtigii aynu ka gudbi lahayn arrimahan oo kale dadweynuhuna wacyigelin runtii iyo dee maanta waxay gaadheen maskaxdoodii inay kala fahmaan wixii la sheegi jiray wax been ayna yihiin marka wixii oo dhan in la iska dhaafo halkaa la iska dhigo ummadda maganaysa la soo dhaweeyo haybsoocan iyo midabta koorkan iyo sida tanna la joojiyo haddii la yidhaahdo dadkuna isku mid yihiin amaam allah يعني مدة دهورتوه aad ayaad u mahadsantihiin labadiina saddexdiinaba aan idhaahde waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena arrimaha bulshada oo aan maanta kaga hadlaynay dadka la haybsooco dhibaatada haysata iyo weliba sidii loo heli lahaa bulsho caafimaad qabto oo sinaan iyo cadaalad ku wada nool barnaamijkani wuxuu noqon doonaa barnaamij aan kaga hadalnay xilqado badan oo soo socda waxaana daawadayaal kaga soo qayb qaadan kartaan idinkoo fikradihiina dhiibanaya emailka shaashada idinka muuqda barnaamijka waxaa igala qayb qaatay khadar cismaan guuleed oo dhinacayga fadhiya oo matalayay dadka la haybsooco mustafa cabdi ciise oo ah gudoomiyaha gobolka gabiley iyo weliba cabdalla saalim oo ah gudoomiyaha SSUK intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah aniga iyo martidayda sharafta leh iyo cismaan maxamuud jaamac oo qeybta farsamada noo fadhiyay waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu